aniga dadka aaminsan baan hay igraan inaysan dhiman waa ka xumay hooyadeed inaan ku hordhaho laakiin ani ma aaminsani dhiigayga damiirkaygana ima siinayo sababta iyadoo soconaysa gaari baa lagala dilay shaqadeedii bay gashay hadday dhimatay ila kuwii horeba waa la aasi jiray nimankaa waa keeni lahaayeen aniga ma qabo in ilaahay ha u naxariisana dadka lagu dul dhaho samirsiin beenana in la dhaho anigoo ka xun oo qaali qalbigeeda dhowraya midda labaad waxaa rabaa in ay macquul tahay oo waxa ay wax ka daran ay dhici karaan arrin ani igu dhacday anoo xildhibaana oo aan ahay wili cad qabiilada yararka oo 25 ka ba ani ahay ciidan ma qabi dad maxaa ay garab istaagnay oo bahalkeenay ma qabi can you believe in ay igu dhacday gurigaygii oo madaxtooyada dhexdeeda ku jira oo aan kira ilaa hadeer bixiyo in aan 2 sano gurigayga aan gelin yaa rumaysanaa horta يويها قفك الرميسنا قف مسكين قبر ير أو دوري صدق اللي بتجرى الله ساقب سلا واحد اللي أو مدي عكرته أو هبلو ويدعد ور أنا يقول عد أنا ما أنا جوري قلواي أو بناك رير لنا حمر مركان إماده أو شرد عين جوري إسلاميات بانتجا جوري جاي أكون يشام بقوله كراء بحيه والله إن أنا لبس نقل مرخانته واحد يجا آمن حلبان إلى مرينا يجا جوري جاي أيوة يقنن علابتي دي أنا أم بقول ذي أنا ما قلي كرا وحاسنا فهد iyo cheese kulane iyo farmaajo keenay ayaga keenay heer waxay gaareen xildhibaan kale ila degan gaarigeeda inuu soo galo saacadiya u socdaan gaariga dadka laga celiyo maryanay beeninaysan ahayn markaantii ka yihiin marka war waxaan reer muqdisho waxa asabta garayseen waa runta marka loo hadlo sababtoo ah marka waxa dhahay weesh qowrac dibga ku qoostay ani waxaan qabaa intaan baa wax ka bedeli karta intaan baa waxay ka bedeli kartaa Falastiin baa la qabsan waay oo aad ogtiin inta quwadooda la dirtay ma Fahad Yaasiin iyo farmaajo waa waxa leedihiin muqdisho ayaa ka wada xukumi kara hadda raali laga ahayn aniga maanta laga bilaabo hadii ay dhiiginu run yahay gabdhaha yararka quruxda badan oo wajiyadooda hor taagan yihiin ikraan meesha la geeyaa leedan geynaya gabar yaro inta iimaanaysa ay gacanta u duuban tahay baa jira in la dilo shalayto gacanta uun bay ka jabtay ayadaba ikraana lagu dari lahaa warsi tii kuwi hore la raacay baa la aasi lahaa la waxay la ani waxaan leeyahay international community horta haduuba wadanka joogo oo muqdisho ee xalana ay tahay meel dadka inta nacaawinay ay daacad ka tahay annaga waxaan u baahanay caawin wadadaas aan istaagayna mana ka dhaqaaqayna todoba bari annaga waa fariisan karnaa todoba bari waa joogi karnaa timir iyo bibiya camno laakiin waa in la keeno oo la dhaho war Fahad iyo kulana jiisa soo istaagan inta hadeen gabadha anaga qalanay gabadhaas qalbiga u qaboojinayna waxaan leenahay gurigaaga aad walaalay oo gabadhi waa dhimatay laakiin gabadhaadina anoo gaari u jeedaan ka haystay haddana ma hadlaayo gabdhihii yar ka saaxiibada intay soo istaagan gacmaha idin ka jijibinayna adeeryaalo sanadka hadda la joogo ma baha meeshaan joognay wadan kale aan joognaa meel kale aan joognaa wallahi inaysan ahayn muqdisho inta in ka badan wax loo adkeysan karo banaan ma istaagi karno baabuur ma raaci karno meel walba qarax baa maalin dhacaya gaariga waa aragtay sidoo u soconaya darbi walba waa xiran oo qarax yaa keenay oo soo dajiya annagii baaba gaariga gudbi leh aniga waxaan rabaa oo kale inaan inta ku sheego maalin dhaweetan dhalinyaro yar oo masaakiina ani wiil walaalkay ku jiray dadku waa is dhaleen waa isla dhasheen ayaa waxa lagu qabsaday jawhar ciyaal ku aftoobteen oo gabadha la hel ah sababtoo ah wax kale oo la qabanayo male maanta waxay noqonaysaa madaxweyne wasiir xildhibaankii dambi kale in walaalkiis la qabsado sababta farmaajo iyo Fahad baa shakada bilaabay labadii ilmihii waa laga sii daayay igraan familkeedii odayaashooda sii daayay ninkii waa la soo qaaday waa la dalcasiyay oo bari hadii ay qabsadaan maxaa la dhahayaa markaa odayaashii maxay ku sheekeynayaan ilaa ani odayaasha inta baaq waxaan ugu jeedinayaa hadii haddana la qabsaday maxaa dhahaysiin ilaa ninkii waa la sii dalcasiyay waraay waxaan meesha lagu joogo oo ay sameynayaan labada waa laba nin waxa wax sameynaa iyo saddex maaha 30 iyo 40 wiilasha shalayto intay soo kaceen muqdisho dhexdeeda Fahad baa caawinayna iyo islaamaha afka soo qortay war annaga Fahad waa nala dhashay waa walaalkay haduu khaldan yahay inuu khaldan yahay la dhaho waa xaq allihina laga boqo wixii khaldan in la dhaho wax khaldan yahay 3 sano loo soo dul qaadanay ani waa ida salaamaya inta ka badan ma hadli karo laakiin hal la iska daayay ereyga ah heblaayo maxaa loogu hadlayaa annagii oo xildhibaan baa guriyaha yagi galila alla ya khali